hagaag dawadayaal qaybtaas waa qaybtii koowaad ee falanqaynta iyo wararka israacay qaybta labaad daawashada qiimaha leh aan ku bilaabo 19 bisha ma jimcaha gaagsan waa 2021 madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in lacagtiisii ay aad u jabtay ama khasaare weyn uu gaaray dhinaca dhaqaalaha kadib markii la sheegay in uu dhumiyay ilaa iyo 700 milyan oo dollar tan iyo intii madaxweynaha 4 sano ugu dambeeyay shirkadda hilaadisa jeebka dadka ee Bloomberg Billionaires Index waaxda la yiraahdo ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha ay u muuqato in jeebkiisa uu hoobtay iyadoo la sheegay in xanuunka faafaha daran uu si xun dhulka ugu jiiday goobaha inta badan ku ganacsan jiray oo u badnaa hoteelo meelaha loo raaxo tago iyo waliba goobaha kale ee isku qurxiyo iyo meelaha ay lagu ciyaaro kubadda loo yaqaan kubadda gacanta ee golfka waxay sheegayaan in arintaasi ay dhamaantood hoos u dhacday intii uu xilka hayay guud ahaan iyo gaar ahaan intii xanuunka faafaha daran uu dalka halkeenay kaasoo uusan ka hortagin haddaba arin intaas ka duwan ayaa dib waxay muuqataa in dalka Mareykanka madaxweynihiisii uu guul ka soo hooyay iyadoo la gaadhin boqolkii maalmood u horeeyay balse uu ku dhex jiro boqolkii maalmood ugu horeeyay ayuu ku dhawaaqay in uu la kulmay wuxuu ku sifeeyay hilaada halka uu doonayay ee halbeeg uu qoondaystay ee ahayd in maalmood u horeeyo uu 100 milyan oo qof uu ka talaalo xanuunka COVID-19 ka 115 milyan 730 qof ayaa dalka Mareykanka laga talaabo waxaana arintaasi si rasmi ah ugu dhawaaqay madaxweyne Joe Biden oo qaranka la hadlay marka habeenimada xalay ahayd isagoo qaranka u sheegay in la gaaray guul kamid ah guulihii la filayay wuxuu yiri maalintii aan arintaasi ballan qaadayay waxay ahayd ayuu yiri December anoona jagada wali qabsan waxaana idin ballan qaaday boqolka maalmood u horeeya aan 100 milyan oo qof oo Mareykan talaali doono maanta 115 milyan ama ku dhawaad 116 milyan oo qof ayaan talaalay wuxuuna wali ka digay inay dadku ay isdhigtaan wuxuu yiri tani waa riyaaq laakiinse maaha ayuu yiri ka falxalash wuxuu yiri Mareykanka wali waxaan u baahanahay inaad qaybtiina qaadataan gacmihiina dhaqa dadka kala fogaada maskiga ama afka afxirka xidha mask sidoo kale raaca talooyinka ayuu yiri CDC xarunta caafimaadka dalka isla markaana la shaqeeyo Biden waxa uu sheegay in 65% dadka da'doodu ay 65 gaadhay ay heleen ugu yaraan ayuu yiri hal kamid ah jababka la isku duro halka uu sheegay in 8% ay qaada doonaan 8% kaliya ay qaateen toddobaadkii hore wuxuu sheegay in marka la gaaro bisha May uu la doonayo qof kasto qaangaar oo Mareykan in la talaalo qayb saddexaad daqiiqadeyn sidoo kale qaybta labaad ee wararka falanqaynta ku soo dhawaada dawadayaal qaybta labaad wararka waa cala dhinaca dunaasiyada qaybta falanqaynta arinta dawadasana qiimaha leh waxaan kaga baxayaa Kenya ee qaybta hore aad ku daawateen labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ama Soomaaliya Kenya waa labada dal daris ah Soomaaliya dhowr talooyin baa hadeerto la gudboon dariskaaga haduu kugu xumaado laba arrimood mid baa kuu furan waa inaad la heshiiso iyo inaad ka guurto inaad la heshiiso wayna suuragali weyday hadda inay la heshiino maxkamadda oo kala bixi weey kamana guuri karto dariskaagu de qoys aad meel wada degantihiin oo aad ka guuri karto ama guriga intaad ka karayso aad guri kala deegi karto ma daldan weey ma reer karti dalki iyo dhulki sida daraadeed waxay fiican tahay waxa la masku intuusan kugu tufaa lagu tufaa Soomaaliya hadeerta waxa uu gudboon marka u horeysa in aysan inagu culayska dawladda haysta gudaha ka haysta dibadana ka haysta Kenya ka haysta maamul goboleedadii dalkeena ka tirsanaa ee laga haysta haddana saasoo ay tahay dawladda Soomaaliya waa in ay formally si rasmi ah waa inay u bilowdaa oo u dedejisaa qorshe ciidamada Kenya waddanka looga saaray isla markaana ciidanka Soomaaliya in ay dalbato in la bedelo ciidanka Kenya xaq bay u yeelanaysaa dood legitimate ah waa inay bay haysataa oo sharci ah doodaasna waxa weeye wax kale ma dalka daris baan nahay waanu isqabanay arrin maxkamad baanu isla tagnay maxkamaddu way ka baxeen go'aamo kale u yaala masiiri arrimo kale ay haystaan siyaasadda waddanka dhexdhexaad kama noqon karaan anaga waa isdhibsanay ciidankooda la noqday dalka doontaana kale ku soo bedelay aan ahayn aan Kenya ahayn oo macnaha waxaan ka wadaa Kenya hadeerto crisis ka hadeerto inoo yaala ayaa saasa dalal kale oo dhan way joogaan hadda doontaan Kenya dal kale oo dalalka kale ee maadaama African Union iyo dalalka muslimka ee galbeedka Afrika ku yaala iyo kuwa ku yaala dabcan qaarada kale ee muslimiinta Tanzania hadii la doon hala keeno dalalka la yiraahdo ciidamadooda dalka la yiraahdo hala keeno dalka la yiraahdo Chad oo nabad ilaalinta dalalka ugu fiican adduunka ku jira baa la dalba kara laakiin Masar hadii la doon hala keeno laakiin Kenya naga saar waa arin ay dawladda Soomaaliya inay ka shaqeyso ay dana ugu jirto wada jirka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Jubooyinka iyo guud ahaanba sidoo kalena yareynaya faragelinta Kenya muujinayana Kenya in la iska celiyo qodobka labaad oo runtii iyadoo isweydiin mudan waxa weeye Kenya
waxaa jiray heshiiskii caruusha loola jiray 1963 heshiiskaasi caruusha heshiis ma ahayn wuxuu ahaa MOU isaguna sidaan ku ogaanay warbixin horudhaca wali arintaas baaritaankeeda waa wadnaa dowladda Soomaaliya Kenya ay ku kala saxideen halkaas MOU gaasi waxa baabi'iyay oo ku tuntay dowladda Ingiriiska qaybna Kenya ka riixday dhulkeena waa lagu qaatay laakiin heshiis caalamiya ma noqon Soomaaliyana weligeed ma aqoonsanin xuduudda labada dal taaween ogaana waxyaalaha muhiimka ah in ku doodi karnay kamid Soomaaliya weligeed ma aqoonsanin xuduudda labada dal waayo xuduudda labada dal dastuurkeena maxaa ku qoran dhinaca Ethiopia iyo dhinaca Kenya waxa ku qoran sida ilaa 60kii arbixintii 60kii baa kana ku qoran hadda xitaa kumeel gaarka waxa ku qoran dalka dhinaca koonfureed wuxuu xuduud kala leeyahay Kenya jiho waa ku qoran laakiin hadda Djibouti oo kale maxaa ku qoran deegaanka Lowyacado baa ku qoran xuduudda Lowyacado saas ay ugu qoranta maxaa loogu qoray Djibouti waxba inaga maqana Djibouti oo dhan baa inagu leenahay walaaladeena Soomaaliya saas weey macnuhu moogta dhinaca Ethiopia waxa ku qoran dhinaca galbeed iyo dhinaca koonfur dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfur galbeed dalku wuxuu kala leeyahay Ethiopia kuma qorna meel hebla magaalo kuma qorna magaceedu waana sida standardka yani aad iyo aadka u fiican ee ugu wanaagsan dawladaha caalamka oo dhan laakiin magaalooyin baa ku qoran xuduudda ilaa dalalku way isku heshiiyeen xuduudda sadraadeed kiis kan kale horta waa in la fara qayla gardhawiis waa in MOU gaas in laga noqdo oo Soomaaliya ay ka noqoto oo tirada waa ka noqonay sida ugu dhaqsaha badan oo ay u yiraahdaan wixii ka dhacay caruusha ma ahayn wax sax dood baan ka qabnaa oo dhulkan Kenya naga maqan ayaanu doonana dadka iyaga ayaan doonana inaanu dib u mideeno dhulka iyagii ayaan doonana inaanu dib u mideeno gumaystuhu markuu loo yimid Nairobi agteeda la Tana River iyo meesha la yiraahdo Addis Ababa agteeda iyo Oboq xeebaha ilaa iyo xeebaha Banaadir Soomaali baa deganay dalkii Soomaali baa loo jiray Somali country ayaa loo jiray dalkii Soomaali baa loo jiray waxyaalahan hadda lagu doodo Ingiriis baa xuduud sameeyay iyo gaala xuduud iyo kama xuduud sameeyay legitimate ma sax maaha waxaan sax u ahayn gurigaaga 5 qol ka kooban hadii la yimaado oo qabsado ciyaalkaagii iyo islaamahaagii ka taliyo oo 5 qol oo 5 nin oo walaalaha oo isku mabda ah ay kala qaybsadaan maalintii ay ka tagaana ay labana ku soo celiyaan saddexna ay reer kale ku daraan iyo qolyooyin kale adoo waxa dhahaysaa laba dal baan ahaa jiray ka baan ahaa jiray oo saddexdaas waxa dhahaysaa dal baan ahaa reer dhan baan haysto buuxa rag baa yimid kala turturay oo kala qabsaday dooda saxda waa tadamay marka hadaynu aqli leenahay waa saas waayo gumaystuhu dadka qaarkood waxay yiraahdaan Afrika xuduud ma lahayn markii gumaystuhu Afrika xuduud way lahayd laakiin qaabkeen u lahayd baynaan garanaynin oo cilmigaas uu inaga dahsoon yahay badmada Yurub xuduud bay lahayd markii ayagu European ahaayeen xuduud ay lahayd ma taqaana waa afka iyo dhaqanka baa dadka xuduud u ah afka iyo dhaqanka iyo diinta ayaa dadka kala xidhay jiray ma Kenya baan wada deganayn meena wada deganayn ma Ethiopian baan wada deganayn soo meelaan ku kala leexanaa jirtay jag ismeena guursa jirin oo meena wada deganayn intii marka isku afka iyo isku deegaankoodii baan ka hadlaya inta daraf ay ahaayeen xuduud waa taa anaga xuduud waxa noo afka yaga meesha afka Soomaaliga ku dhamaado bartaasan kaga joogsanana dal kasta sidaas ayayna u qoondeeyeen ayagu markay arkeen dalkan dal weyn dad yar oo dhulkan Soomaalidu markay ay yimaadeen markaad fiiriso buugta ay sanacadii qoreen waxa wuxuu ahaa dhul aad u kayma badan xidhmooyin xoolo badan xoolahaas ay aad u burburan yihiin aad u naaxsan yihiin dadkuna waxay ahaayeen dad aan cawaan ahayn cilmi badan lahayn عوان ما هينو قفك دو إلهي يرسولك سيقان عوان لما أركره لكن محا نقول يرى قرالك إيه مقالة نقول يرى قرالك نقول يرى مقالة نقول يرى محا كلو علادو أنو لحين قبيالات أو قبيل بنو دقي جرني لولك قبيل أي نو دقي جرني لكن سي قبيل كحدود ما هين سومالو قبيل كحدود هدو النقضة دقالك سوكايا كدقايا واقو هرم ما هين سياسيين تا أو استعمالي شعر أو استعمالي بكدقين لكن وحو هاجري قبيلكو wuxuu haajir deegaanka degmooyinka waa la kala degi jiray waa loo kala badnaa waana la isla degi jiray hadii xilliga Soomaalidu iska reer guraabay heed roobabku markay meel ka dhacaan meesha la aadi jiray halkaas marka degmo u guurto ay ku hadho Douglas Chaden ninkaleedo baa si fiican uga sheekeeyay markay halka degmooyinka ay cid u guurto cid baa kaga soo hadhi jirtay macnaheedu ma taqaana gabadha lagu guursanaya degmooyinkaas guursanaya kuwa laga soo gaxaysanaya haduu doono midba in la yeel noqonayo waxa la yiraahdo halka ku harayo oo reerka jeclaanaya oo la xidhay way Soomaali waa walaalo
waa dad isguursanayo markay isku yimaadaan reer intuu meel fog kasoo guuray intuu ku yimaado gabadhaadii guursaday waa walaalka diintiisi baa taqaanaa dhaqankiisi baa taqaanaa ciduu yahay baa taqaanaa qabyaalada marka lagu sheegayo qabiilkan lagu sheegayo waa myth way waa wax la sameeyay waa fake waa wax iska fake Soomaaliga laftiisa qabiila Soomaali laftiisa ayaa qabiila Soomaaliga haduusan gabadha Soomaalida ah hadaan leeyahay celini oo aan guursanayo oo gabadh walaashay uu guursanayo ay ilaahay calaf soo diray iska helaan is guursanayaan ama la siiyaba hadii soo doonto la siini haduu doono la carari seebay ku noqon kartaa marka xuduud seebay ugu noqon karaa aniga qabiil ama la iga dhaadhici karaa maskaxdayda qabiilkaas tahay halkaas degtaa dhulkan wala kala leeyahay ma jirto marka way ka shaqeeyeen laakiin way xoojiyeen Ingiriisku xoojiyay waxa la yiraahdo uqaal buu sameeyay salahan chief aqlis ayuu sameeyay chief aqliska ayaga uu qaybsanayaal bay wahayn khalifa ayay wahayn waxay maktaa reerkii ninkii wax dila la soo qabto kala soo qabto xagga Ingiriiska nabadoon iyo waxa ka jiray xagga Talyaanigan leh iyo koonfurta askar ilaalaa bay sameysteen qabiil bay ku qori jireen xitaa askarta because fikirkan waa meel dabaa way qabsadeen waxay doonayeen inay nooleeyaan waa meesha dalka ka baabiinayeen isku soo wada xaad waxyaalaha muhiimka loo baahan waxa weeye dood qayla gardhaweysa la yiraahdo qaylo ayaa gardhaweysa arinta Soomaaliya waa inay inta kaga hadhaween si wada dacwadaha waa inay socdaan dhulkii waa in la raadiyaa dadkii waa in la raadiyaa Kenya waa in ugu yaraan lagu khasbay inay nabad geliso hadii ay saad weydo oo saad lagu daayo saas arin noqoto leeyahay waa guuleysanay oo jirjir u seexano oo aynan hadeerta underrating inuu noqdo weeye hadeerta inuu ahaaday heedba kiiska ku saabsan dadka dalka iyo dadka ayuu ahaa waayo Kenya dad fiican bay leedahay waa run oo dad degan bulshahan way laakiin siyaasiyiintoodii waxbay barteen dadku moor wax bartana waa moor u hankoodu kaco umada u fiirso bini'aadanka waaba sunnatullah qofka bini'aadanka markasta uu isirado waxbarashadaadii iyo dhaqaalahaagii iyo maskaxdaada waayo aqoonta lagu sheegay maskaxdaada iyo fikirkaaga ay korinaysaa waaqaca aad ku nooshahay markaad bariirado maanta waxaad aqoon markaad research garayso aad barato oo aad arinta assignment ka shaqayso waaqac kale aad ka aaminsaneed baa laga yaabaa arinta ama waligaaba kuma soo dhicin kadibna han baa ku galaya cusub oo adduun han baa ku galaya waana sunnada ilaahay bay kamid tahay ilaahay baa yiri bini'aadanku markasta way tadhahan marka aanu wax siino way tadhahan marka sayna ilaawaan ilaahay laakiinse maaha mid isagu insaankiisa ilaaway dadkiisa ilaaway saadaradeed waxbarashadii faraha badneed ee ay wax barteen ee wadakoodii uu dhismay bay waxay sameeyeen uu ku filaaway wadakoodii way liqeen wadankii way liqeen khayraadka wadanka waa gabaabsi wadanka beeruhu ku fiicnaa beerihii hadeerto adduunka oo dhan baa beer wada samaysanaya saxarihi baa hadeerto carabti baad aragteen oo wax beeranaya baa la soo wada gaaray khayraadka very limit ku noqday dadkii baa ku badanaya dadkoodii baa badanaya hadda dhawaan watay 50 milyan ku dhawaad sheeganayeen way badanayaan aqoontooda waa badanaysa ninkii marka aqoonyahanka ilaa nimankan cadaanka ay arkaysan adduunka oo dhan qabsanaya maxay adduunka oo dhan ku qabsanaya ay ku leeyihiin waa cilmi nimankan saynisyahannada ay wax qorayaan carab ee halkan wareegaya maxay adduunka ku qabsanayaan waa cilmi teknolojiyada iyo diyaaradahan iyo waxaad sheegayso waa cilmi waxaanay sheegayaan waa cilmi in ay adduunka u dawladeeyaan oo ay yiraahdaan waa cilmi bar hore ay qorteen wax leeyahay UN charter ay sameysteen nuclear bay sameysteen waa cilmi marka Kenya hadda waxa inaga soo ifaya waa cilmi sidee baan marka wala challenge baynu u baahannahay waa sidee aynu fikirno marka waynu dad mufakiriin hela waxa kamid ah marka fikirnimada la heli karo horta markoo aan iska taakada ugu weyn iska qaban karto waxa weey dhulkan ku qabsan dhulka markaan ku qabsanno difaac horta bal ugu yaraan ay ku urureen ayagu difaaca ha gale taas intaynu ka shaqeynana dalkeena ay nabadeen tan kale dadka ahlu cilmiga especially dadka maanta waxbarashadoodu fiican ee dalka dibadiisa ku maqan dalka ku soo noqday gad baa la tusaabay Soomaaliya tira gad baa la tusaa dalkan dadkaas noocaas oo kala ah ee ayaguna wax bartay ee hanka faraha badan garanaya ee dawladahan tadhahay arkay ee Kenya si u fakari kara waa inay dalka ku soo noqdaan dadka gudaha joogana qoriga iyo hubka dhiga dawladnimada ka shaqeeya dalka dhisa waxbarashada ku noqda aynu iskaashano walaalnimo Soomaaliyeed ka shaqeeyno ka wax ku dheer ku farx ka hooseeyana gacan qabo adiguna isku day in aad si wanaagsan ku gaadho halka uu gaaray ka sareeya ka hooseeya inuu ku soo gaaro marka ka xumaan haddaad xitaa adigu soo gaarsi kartay soo gaarsi aynu is walaashan haddaynu is walaalsan weyna Soomaa xaqiiqad
sida loo hunguriyay badan ayaa loo hungurinayaa bad waqooyina saas loo hunguriyo bad waqooyi waa badan cas iyo intan yani badan cadmeed ee agteena halkan martay ilaa iyo bad waqooyi fiiri haddii aad diido Soomaalinimada meel baa balaaya ka helaysa adoo meel maraya balaaya ka helaysa 50 milyan baa halka afka ku soo kalaya halkan 100 milyan oo qaqaawan baa fadhiya oo yani oo maartay landlock dal dhan oo gabigiisa aan bad lahayn landlock yani dal dhan oo aan bad lahayn oo 110 milyan bay hadda sheegtay Afrikada number 1 Masar xitaa way dhaafeen iyo Nigeria Masar way dhaafeen Nigeria hadda san ku sii hayaan fiiri dalkaas halka inoo fadhiya oo halka kugu fadhiyo ku eeg adigaaba lagu gaadaya gooshka dabadeed weey marka fiiri hadaad kala qoqobto oo Soomaalinimadii disho oo dadkii isnacsiiso oo maalin walba aad colaad abuurto war dalkan qabiilkayga waa la qabsanaya labada waa la qabsanaya rag baa u talinaya Kenya kugu dayday oo aragta oo doonaysa inay qalin kugu qaadato ma Ethiopia ku dahays qaybta labaad dawadayaal